وهي ولا برنامجka la socday Soomaa عادي بعض ما تصنتهاي ay كل نينك هورا iyo adiga markaad hadlaysaan ay baan live kala soo qabsaday hadalkiina waan dhageystay la daaray ninkii dhahayay dad ba xoolaha dad u raaci jiray iyo waxyaabaha la midka ah marka anigu waxaan dhihi lahaa aadiyaan aniga oo waxaan ka soo jeedaa reerkan maxay ahayd aad hadda magac dhabayseen marka waxaan dhihi lahaa waa caadi haye waxaan dhihi lahaa niman yahow dadku basharka markay meel wada degan yihiin dad fiican iyo dad xunba way leeyihiin marka aadiyaan haddii nin ogaadeena uu khaldamo macnaha waxaan u arkaa anigu inaysan in ogaadeen wada khaldamin annaga ogaadeena fikirkaana aan qabin hadduu nin ciisaa khaldamo ama nin garaa khaldamo ama mid dagoodiya khaldamo ama mid sheekhaasha khaldamo ama mid shariifa khaldamo macnuhu ma aha inay reerka uu ka soo jeediyo ummadda uu yahay ay khaldameen ma aha saas awgeed aniga taladaydu waxay tahay dadka inta cuqalada inaan isku darro oo qofkaasi aan ugu jawaabno oo aan dhahno war xaafadiina ha marmarka iyo edab darrada ka daa oo dadka u soo jeedin annagaana la hadlayna yacni hadduu isagu khaldan yahay annagaa u sheegayna saas darteed maadaama hadda marxalo kala guura aan marayno kulligeenna isku mid aan nahay soomaali aan nahay xuquuq badanna etoobiya nagaga maqan tahay ilama quruxsano inaan iskala qaadqaadna aniga aragtidayda weeye waa inaan xuquuqda aan leedahay aan wada doonanno inteenna waalwaalan iyo kuwa waalwaalanna reer walba kuwa waalwaalan iyo kuwa khariban iyo kuwa qabyaaladaystayaal oo ay leeyihiin in maaragtay aan si guud isaga wada dhicinno aan dhahno innaga wax inugu kala maqan ma jiro sababtoo iska yarayno oo si kastoon uga hortegi karo aan uga hortagno ayaa ila quruxsan intaasaan ugu darsan lahaa wixii kale idhahaysana waad ii sheegaysaa horta awalan aad iyo aad baan kuu salaamayaa nin maskax fiican baa tahay nin wanaagsan oo maaragtay kolley ninkaasunbaa dadka horta nin xununbaa dadka waala oo nin xun hadal ku yidhaahdo hadalku maaragtay kolku de isaguna xaafad weerarayo adiguna inaad xaafad weerartid moogtahay nin hadduu adiga ku weerarayo waa caadi oo shaksiyan hadduu shaksiyan adi shaksiyadaada iyo nafsadaada wax kaa sheego adiguna nafsadiisa iyo shaksadiisaad wax ka sheegaysaa hadduu isagu xaafadii aad adigu kasoo jeeday wax ka sheego adiguna inaad xaafadiisa ka sheegta dad la waalanta laakiin haddaad qumanta inaad u nasteexayso weeyaan ninkani nasteexo horta ma yaqaano tiisa halkaas naga dhigi si fiicanna waad uga hadashay nin wanaagsan baa tahay su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adiga aye fadal awalan kolley nin waxaa tahay maskax furan waxaan ku weydiinayaa onalif xisbi bay qaadatay xogayaheeda arrimaha dibadda axmed yaasiin sheekh ibrahim wuxuu yidhi kolley magacan nama bedelayno magacan taageero badan baan ku haysanaa magacan waan ku maaragtay doorashadan ku gelaynaa laakiin magacan unbaan doorashadan ku galno yaa soomaalinimo ku dhaqaynaa marka ma aaminsantaha ina magaca haddii la bedelo soomaali oo dhan inay ku midoobi lahayd mise magacaasi hadduu joogo onalif taageero badan bay helaysaa oo waxbana iska lumamayso oo maaragtay wakti ay wax iskaga lumisana ma jiro magacana iyadoo watay doorasho geli doorashadan way ku guulaysan hadafkay lahayd ma gaadhay baas leedahay niyahow waa su-aal fiican dabcan onlf tan iyo bidaayadii hore ama bilowgii waxay u baxeen wuxuu ahaa inay somali state ama deegaanka soomaalida inay ka madax baneeyaan etoobiya oo ama soomaaliya ha ku lagu daro ama dowlad gaara iyaga in laga madax baneeyo hadafkii ma aynan gaadhin wuu xaqiiqoobi waayey mana suura gelin haddii wixii ay rabeen ay waayeen macquul ma aha hadday hadda yimaadeen oo ay dhaheen xisbi baan furanaynaa dee xisbi magacay
magacay doontaan ha wateen inta iyaga taageerayaashooda unbay maxay ahayday unbaa dooranaya intii kalena ninkii xisbi reerkooda magaciisa furan iyo yacni hadda xisbi gaara magacuu furtay aniga wax dhiba iguma hayo oomana arka wax dhiba laakiin inay intii iyaga ay matalaan oo ogolaato oo magacna ku jecel oo qaabkay afkaartooda usoo bandhigayaan ku jecel inay ku dhaqaan waxba dhiba ma laha teeda labaad hal xaqiiqa inaan ogaana aad iyo aad muhiim u ah sideeda magacyadu xaqiiqada jira wax kama bedesho haddii aan soomaali la baxno state iyo haddii aan onlf la baxno iyo haddii jilib kale magacii aan isku wada raacno sidii unbaan soomaali u ahaanaynaa meel hoose u joogaynaa ilaa aan madaxeenna iyo maskaxdeenna furo caqligeenna furo waxa inaga maqan aan fahanno aqoonteenna aan kor u qaadno bulshada aan wax la qaybsanayna mustawaheeda halka uu joogo aan isgaadhsiino sidii unbaan ahaanaynaa marka aniga waxaa ila quruxsan oo onlfna magaceedu ha wadato hadday iyagu sidaa ay ogol yihiin hadday bedelayaanna iyagaa khiyaar u leh annagana inteena kalena ninkii furan kara axsaab kale aan furanno oo aan ku tartanno oo nin walbana wixii saaxada iyo taageerayaashiisa uu ka helo aan aragno innagoo soomaaliya oo maxay ahayde magacyada iyo xasaasiyadda faraha badan oo qabyaaladda iska yaraynaynana inaan wada noolaano dhulku waa ina qaadaa deegaankuna waa ay qaada ayaa ila quruxsan aniga si fiican baad horta u dhigtay wax si wanaagsanna waad u qeexday laakiin su-aal baa kabtaa iga soo baxday oo su-aashaan inaan ku weydiiye aan rabo horta marka horeysa aan ku weydiiye nin jabhadda ka tirsan maad ahaanaysa mise heego iyo qolyihii ka hadhay baad ahayd maxaa tiri walaal iigu celi su-aasha jabhadda maad ka tirsanaanaysa mise qolyihii heegi iyo maaragtay inay ka hadhay baad ahayd inaan su-aashaa ku weydiinin waan dabay maya ustaad anigu heega ma ahayn urur la dhihi jiray dulmadiid baan ka mid ahaa oo dadkii cabdi maaragtay kasoo horjeeday ahaa saasay ahayd dulmadiid laftigiisa waxoogaa inaan wax kaa weydiiyaan rabaa laakiin tan onlf baan ku jira aad iyo aad nood u mahadsan tahay heegana haddad ahayn maaragtay heegana iyaguna ururun ba ahayn dulmadiidna ururun waa caadi waxa inaan ku weydiiyaan rabaa waxaa tiri waan isla wala maaragtay magaca ina wax dhibi kuma jirta baa tiri wax ina magacan onlf in maaragtay ay magaceeda iska wadato mar dhaweydna waxaad ka dhawaajisay cadow ay nagu xeeran oo inaan midownaan rabnaa waxaad haddana oo intaad timid haddana waxaad ka dhawaajisay inaynu magacani wax dhiba keenaynin intii taageersanaan jirtay ay dooran in kalena aynu waxba ku falaynin saasaana su-aashaada u fahmay iyo jawaabtaas waxba ku falaynin ma aha ustaad waxba ku falaynin ma dhihin inta kale waxbay ku falaynin ma dhihin macnaha xisbi sidiisa markuu xisbi yahay taageerayaal u gaarou leeyahay taas macnaheedu ma aha aniga xisbiga banaanka ka ah ma si fiican su-aasha waan wataa waan kuu keeni doonaa moogtahay waan isu keeni doonaa marka magacan bulshada soomaaliyeed maadaama sas badan ka qaaday oo maaragtay qabiil buu matalaa laga dhaadhiciyey ama aan aaminsannahay in maaragtay waxaan inta layska daaya sidii loo dooran lahaa iyaga waan aaminsan maaragtay waxyaalo badan ba maaragtay laga aaminsan yahay magacan waan bedelaynaa bay yidheen waxyaalo badan bay maaragtay adu ay ku galeen dulmidiidka lafteedu maaragtay inay ku heshiiyaan oo maaragtay ay dulmidiid ururka sarda waxay ku heshiiyeen soomaalida xorta kadib shalay buu yimiday wuxuu yidhi magacan onlf lama bedelayo halkaas mayna kaaga muuqanin inay magacan hadday iska bedelaan inay burburaan inay ka yarbaqayaan wallahi ustaadi waa laga yaabaa aniga runtii xeer hoosaadyadoodan ma akhrinin jabhadda onlf intay soo galeen keliya waxaa igu maqaala inay dhaheen maaragtay xisbi cusub baan noqonaynaa waana soo dhawaynayaa inay waddo aan xabad ahayn ay wax ku raadiyaan aad iyo aad baan usoo dhawaynayaa oo nabad ah oo wix xuquuqa ay leeyihiin ay ku raadiyaan onlf arrinta magaca inay magaca bedelaan iyo inaysa bedelin iyo maxay ahayday inay wataan anigu waxaan u arkaa inay tahay arrin iyaga u khaas ah laakiin waxa naga dhexeeya annaga iyo iyaga iyo kulligeen waxa weeye deegaanka haddaan anigu xisbi samaysanayo oon magac gaara soo samaysto magacaasna uunan cid dhib ku haynin oo cid cay uun ku ahayn ama cid xuquuqdeeda uun meel ooga dhacaynin ama cid sharafteeda uun meel ooga dhacaynin anigu ooma arko inuu wax dhiba leeyahay magaca haba yaraatee marka
hadday dheheen iyagu magacanaan wadanaynaa oo ta waan ku magaca ka gudubno okay ta magacaba ka gudubno haye waxaan ma u malayn kartaa inay doorashadan kusoo bixi karaan kolley inta aan ogahay onalef sababtoo doorashada lafteeda waqti xoogaa ayaa ka hadhay waxaa laga yaabaa inay wax isbedelaan ama qawaacidda iyo meelaha maaragtay asaasiyaadku wax iska bedelo waa mumkin haddii doorasho xalaala la qabto oo si xalaala laiskugu soo sharixi karo oo uun cagajuglayn jirin oo doorasho xalaala ay jirto waan isleeyahay nisbo intay doontaba ha ahaato taageerayaal badan bay leeyihiin guulla way gaari karaan ma dhihi karo guusha waa 90% ama 80% ama 70% laakiin intay doontaba ha ahaato guul way gaari karaan sababtoo deegaankay u dhasheen taageerayaal badanna inay ku leeyihiin waan ogahay yaqiin weeye taas waa su-aashaada waan fahmay berberkay u dhacayso adigu waxaa tahay nin dulmidiida adigu nin dulmidiida saad ii sheegtay nin dulmidiid ka tirsan baa tahay dulmididii onalefna wax xidhiidh oo hadda ay leeyihin weli maanu maqal meelay dulmididii onalef ku heshiiyeenna maanu maqal marka soo laysma dhigi karo waxoogaa maadaama magaca xaafadda adigu aad inaad ku difaacdo rabto dulmidiidnimadaadi ayna ahayn dulmidiid saxa dulmididii onalefna wax xidhiidhi ka dhaxaynin sidaad isu qabatisiin kartaa labada mabda walaal anigu ma rabo dulmidiid markaan ahaa waxaan u dagaalamaynay cabdi ilay sidii ummadda looga kor qaadi lahaa iyo nidaamkiisi qallafsanaa waana ku guulaysanay jus-iyan oo asbaabihii lagu riday sabab ka mida ayaan ka mid ahayn waddankiina hadda ugu yaraan xorriyad baa ka jirta hadday doonto intii la rabayaynan gaadhin oo dilkii faraha badnaaya xadhiggii iyo xabs dadkii faraha badnaaya lugaha ka go'naa waa laga baxay marka haddii aan xaafad u dagaalamahay iyo reer cabdi ilay isku reer baan nahay waan la safan lahaa saasoo ay tahay haddana waan kasoo horjeeday marka arrinta reerka xagga iga dhig hadda anigu waxaan ka hadlahayaa nafci iyo sida taxliilaadkaygu ama inta aan ogahay ama maxay ahayd faalladayda ama inta aan u leeyahay aqoon ayaan ka hadlaya oo onalef aniga colaad igalama dhaxayso xisbi kale oo deegaanka ka jira ama shaksi kalena colaad igalama dhaxayso waxa marka aan ka hadlahayo oo aan rabo inaan anigu sheego waxay tahay innaga oon xasaasiyad ka qabin magaca onalef ay wadato innaga oon xasaasiyad ka qabin maxay ahayday koox kale iyo xisbi kale aan doorashada isku soo taagna nin walbana wuxuu isagu sida uu oga dhaadhiciyo aragtidiisa dadka bulshada ee wax dooranaya aan aragno oo ha noqdo meesha aan ku kala baxayno sanaadiiqda lagu codaynayo okay xisbi soo samayso soo sharciyeyso magaca reerkiina oola soo bax qayb kaga dar kadibna afkaarta aad wadato iyo qaabka aad rabto inaad dadka oola sheergarayso oo aad rabto inaad dadka ugu qabato soo bandhig annagaa ku dooranayna hadday afkaartaad u dhaqanayso annaga waxaa ku soconayna waxaa weeye ka muwaadin ahaan magacayga ku hadlahaya qofka ay fikraddiisu iga gadanto oon islaahay deegaanka iyo dalka ayuu wax u qaban karaa xuquuqda etoobiya nooga maqanna wuu soo dhicin karaa ayaan anigu dooranaya ama onalef ha noqdo ama xisbiga madaxweyne mustaf uun ha noqdo ama ha noqdo xisbiyada cusub oo laga yaabo in lasoo wado kooxdu doona ha noqoto soo gaabi somaan soo gaabin waxaan ku weydiiyey anigu waxyaalahan ku weydiinaya maaragtay fikirkaaga xor baad u tahay inaan maaragtay dood ma ahan meeshu waa su-aalo laisku weydiinaya kadibna fikirkaan wax ka dhihi doonaa dowladda in cagjar ma aaminsan tahay inay cadaalad samaysay midda labaad dowladda in cagjar siyaabey ku timidena dulmidiid baad ayadoo waxaan u malaynayaa dulmigii aad diidayseen dad ma ku samaysa mise kuma samaynin baad aaminsan tahay niyahow dowladda in cagjar dabcan horta cadaaladda wax xaqiijin karaa ma jiro oo aan eebaweyne ahayn dadka basharka ah dowladda in cagjar dabcan wax way qabatay laakiin haddana saasoy tahay eedo way leedahay eedaheeda iyo maaragtay way leedahay inkasta oo waqti hadda maaragtay fog aynan gaadhin oo 100% la qiimayn karo laakiin 100% haddaan qiimayno waxna way qabatay runtii eedana waan u haynaayo way leedahay taasi intaasaan ooga gudbiyaa siday ku timid aniga hadda ma raba inaan ka hadlo sababtoo siday ku timid si waxay ahayd xaal mastuur ah nin rajiiba ayaan maaragtay ridnay sidaasayna dowladdii mustafa cagjar ku timid
المهم هذا الدولة جرت ويان إنه النظام نو جيران وح في عوي صوت دونا هذا لكن نظام كهدون نقض النظام قلب سنة ضد كدلة مركي أن فرصة سيدية وقت كدب كما أقبل إن السيدي تعدي لي بعد أقبل